caqabad noocee ayaad kala kulantay Wanax Partners? Caqabadaha aan kala kulmay intii aan ku guda jiray lacag ka samaynta online-ka gaar ahaan Wanax Partners waxaa jira caqabado dhowr ah oo aan la kulmay intii aan ku guda jiray barnaamijkan. Caqabada koowaad waxaa ka mid ah promo code problem. Si aan u samaysto magac promo code ii gaar ah waxay ahayd caqabad ay i qabsatay. Wanax Partners la mid ma ahan sida Bedwinner Affiliate oo kale oo marka aad doonayso inaad samaysato magac promo code ku gaar ah waxaa qasaba inaad ayaga aad codsato oo adiga iskaaga uma samaysan kartid. Waxaana dhex maray qoraaladan aad arkaysaan. qaabkaas ayaan iigu soo jawaabay. Caqabada labaad waxay ahayd withdrawal problem. Sidaynu wada ogsoonnahay lacag la bixista ugu yar ee lala bixi karo ama lacagta ugu yar oo lala bixi karo barnaamijkan waa $30. Markii aan gaarsiiyey $30 ayaa lacagtii la ii diri waayey. Taasina waxay ii ahayd caqabad. Waxaan la xiriiray qaybta sabuurtiga. Waxaan weydiiyey ciladan waxayna ii sheegeen in akoonkayga uu u baahan yahay in la verify garayo si ay lacagta ii soo gaarto ama lacagta la igu soo diro akoonkayga. Waxaana na dhex maray sida soo socota. Labadaas ciladood waxay ahaayeen caqabadaha ugu weyn ee aan la kulmay intii aan ku guda jiray lacag ka samaynta website-kan lagu magacaabo Wanax Partners. Runtii marka si loo fiiriyo ma ahayn caqabad sidaa u weyn marka loo eego waqtigan xaadirka ah. Balse waagaas ama waqtigaas ma jirin qof Soomaali ah oo ka hadlay ama ka caawin karay caqabadaha noocaan ah oo inta badan ma fahansanin. Qofka fahansanna ma doonayn inay dadka ay sii bartaan si bariiskiisa aanay ciid uga shumin. Taasoo iyadana ah caqli xumo iyo xaasidnimo. Maxaan ka bartay? Waxaan bartay in caqabad waliba la xalin karo lagana gudbi karo haddii aad u dhabar adeegto. Imise lacag aad ka samaysay waxay ka mid ahayd su'aalaha la ii soo weydiiyey. Waxaan ka sameeyay lacago gaaraya 820 meel ah, meel 740 ah, meel 150 ah iyo meel 50 ah iyo meel kale oo ka sii yar. Waxay ii ahayd lacago isoo gala anigoon filanayn. Su'aasha kale waxaa ka mid ahayd imise akoon ayaad leedahay? Waxaan leeyahay ilaa iyo 5 akoon oo aan lacag ka sameeyo dhammaantood. Muuqaalka xiga waxaan kaga hadli doonaa caqabadaha aan kala kulmay Bedwinner Affiliate. Waxaana kaga jawaabi doonaa su'aalihiina ku saabsan Bedwinner Affiliate anigoo sidan oo kale u soo koobi doona insha Allah. Intayna muuqaalkayga aynu dib uga kulmi doono Allahidinkii isma dhaafin.